سيدنا عمر أيال ويديه وحلقوا يري سيد عمر أنت الجاهلية ده كنتي محاك وقويا بن محاد وحيالها وجود يعني هذا قلبك أبو كجو أين يتكمل وجود محاكم ذها وحيري وحيقويا بدنا لما مسألوك الله يوم من حق عقيدة أي خصيصه منا حق النحريس الرضا أي خصيص وحيري مال ما كم ذا أي إنن أنا أقول دلوت الدبشرة oo aan markii hore iska daayo iska dhagamariyaha iska noolaato aan laha ayaa dabadeedna dacaayadii ragga iyo qiiradii ayaa igu badatay waxaan go'aansaday gabadha inaan dilo hooyadeed baan ka sasabo waxaan ku yiri meel baan soo booqanaynaa aniga iyo inantu dhar fiican oo qurux badan u soo gali isoo raacay wacad bay igu la gasho waxay ma laga yaabaa inanta inaad hadima u wadato may inanta waan kugu soo celinayaa inantii buu kaxeeyey waa 7 jir xabaashiiba u qodayaa xabaasha aan qodayo iyana way dhinac fadhidaa ciida xabaasha ee aniga igu soo dhacda gadhka iga fuusha ayay gadhkayga ka daadinaysaa inantu naxariis ay aniga ay naxariisanayso ayay gadhka ka daadinaysaa waxa aniguna aan rabaa inaan iyada xabaal nololiyo mana oga inaan iyada duugayo inna damiirkaygu isiin waayay ilmaha yare ee quuri la inay gadhkayga boorfuulo inaan nolosheeda aan sababo oo aan dilo oo waliba iyadoo nool aan ciida ku aaso damiirkaygu way iga qaban waayay inantii siday boorka iga daadinaysay ayaan intaan laba diblo u xiray ayaan qabrigii ku ridoon ciida ku aasay iyadoo dhar qurux badan oo hadlaysa oo yaani ciida maqanaysa way badnayd carabi inay taasaa samayso إلهنا تبارك وتعالى القرآن كيسا وكجو الرمي إن لإسويدين دونه وإذا الموؤودة سئلت عربي ساسي هرت أهيد حق النحريس الرضا وإن إلمها يقول لنساء حبال نلوليان رقم بيء واحد حق عقيدة مركز لأيقو مخلوقات ككلا وحون منفعة مال كلا بي عابد شيرين هبيراته لكن عربي waxay caabudi jirtay waxaan manfaco meel laba kala hayn qisal yaab laba sayidina Umar ka soo martay markuu ka hadlay qadiyada cibaadada dhagaxaanta iyo waxyaalaha jamaadaadka wuxuu yiri marka uu ka waramayay sayid Umar radiyallahu ta'ala anhu bariyaha kamida ayaan safray markii aan ka sii safrayay ilaahay ii yeelay kacbada waxaan sii samaystay xalwad yar oo sidii sanamka oo kala oo aan isleeyahay wakiil ha ka noqoto cibaadada sanamkaaga xaramka yaala ee dhagaxa ah cid aan marka cibaadada u soo mariyo waa inaan samaystaa marka waxa aqligaygu siiyay mar hadaad ilaah samaysanayso ilaah yaroo macaan aad samaysatid oo ka wakiil noqda sanamkaaga sidii baan marka sanamkii u samaystay safarkii baan galay jiidaashii baa igu dheeraatay sahaydii baa iga dhamaatay meel cidla ah oo aan meecidaan martiyana waan waay gaajay naftu iga bixi gaadhay inta soo caana maal baan ka sabrayay inaan sahaydana watay xalwada aan cuno markay nafbax iga gaadhay baan xalwadii u sujuudeen ooyay waxaan ku yiri ilaahayow waan gaajoonaya hadaan ka dhinto cidi ku caabudi mayso gacantaada isi markaasaan gacantii goostay buu ilaahaygi baan gacantii goostay anigoo aad iyo aad u diiqadaysan oo inaan dambaabay soo haysta muddan haddana safrayayo sahaydii haddana waan waayay mar labaadkiina intaan ilaahay aad u caabuday xalwadii waan idhi gacantaada labaadisi gacantii baan ka goostay war sidii aan u waday buu yidhi baan xalwadii oo dhan aan dhammaystay ilaahaygi waan wada cunay hada waa sayid cumar وانك تقانين كعبة آد بي وعابدي جيرين maalintii quraanka uu fahmay adoonkiya ilaahayna uu kala gartay kacbada muxuu oran jiray xajar al-aswadka marka uu dawaafayo ee xajar al-aswadka dhunkanayo wuxuu oran jiray markuu de aqeedada yeeshay wallahi waan ku garanayaa inaad dhagax tahay la tanfac wala tadur dibna inaanad keeni karin dheefna aanad lahayn waan ku garanayaa xajar waa kacbada aynu salaada ula jeesano
inaad dhib iyo dheef midnaba lahayn waan ku garanayaa waxaan raacayaa sunnadii nebigaa nagu yidhi dhagaxa dhunkada waana lagu adoonsaday sababta aanu ma garanayo laakiin inaanad dhibaato iyo dheef midnaba aanad lahayn dhagax yahow waan ku garanayaa markuu islaamka noqdayna waxaa u kala socmay addoommadii iyo ilaahay buu kala gartay